amar ka soo baxay dowladda federaalka ayaa gebi ahaanba lagu joojiyey duulimaadyadii aadi lahaa gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Doolow. Arrintan ayaa daba joogto kadib markii 6 askari oo basaasiin ah oo dowladda federaalka ay u dirtay inay carqaladiyaan sidoo kaleetana dagaal ay ka abuuraan gobolka Gedo oo dhowaan ay ciidanka Itoobiya ee xoonka magaalada Doolow ee halkaasi ku xidheen. 6 askari ayay dowladdu gebi ahaanba u soo dirtay inay halkaasi ka abuuraan dagaal markaasi ay kaga hortagayaan ciidanka maamulka Jubbaland iyo waliba cid kasta oo markaasi taageersan nidaamka madaxweyne Axmed Madoobe. Gobolka Gedo iyo waliba deegaanada maamulka Jubbaland ayaa si weyn looga taageeray doorashada ka soconaysa magaalada Kismaayo ee halkaasi gebi ahaanba ay tageen odayaasha dhaqanka iyo waliba cid kasta oo gebi ahaanba soo xulayso xildhibaanada maamulkaasi Jubbaland. Dowladda federaalku arrintaasi ka soo horjeedo ayaa dhowaan ciidamo geysay gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Luuq iyo waliba deegaano kaleeto. Ciidamadan ayaana ujeedkoodu ahaa in gebi ahaanba lagula dagaalamo madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Si kastaba 6 askari ee dowladdu ay u soo dirtay gobolka Gedo ayaa ciidanka Itoobiya haysta garoonka magaalada Doolow ay gacanta ku dhigeen iyadoo markaasi ay sheegeen inay 6 askari ay markaasi ka socdeen gebi ahaanba dowladda federaalka ayna diyaarinayaan qorsho abaabul dagaal oo markaasi laga abaabulayo gudaha gobolka Gedo. Dowladda federaalka ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii aadi lahaa gobolkaasi Gedo waxayna shuruud uga dhigtay in 6daasi askari la soo daayo inta laga soo daynayana aysan gebi ahaanba wax duulimaada uusan ka digaynin gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Doolow oo ah goobta ay ku xidhan yihiin 6 askari ee dowladda federaalka ay u idmatay inay dagaal ka abuuraan gobolkaasi Gedo. maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa dagaal ka dhex qarxay kadib markii maamulkaasi Jubbaland ay gebi ahaanba sheegeen inaysan yeeli doonin amarada ka soo baxaya Villa Soomaaliya sidoo kalena gebi ahaanba ay xiriirka u jareen iyagoo qabsanayo doorasho ay dowladda federaalka gebi ahaanba wax luga aysan ku lahayn. Si kastaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa ayaa haatan banaanka keenay dagaalka cad ee markaasi ay ku qaadayaan maamulkaasi Jubbaland iyadoo markii hore ay arrintu ahaydun hadallo la isku marinaya saxaafadda laakiin si ficila ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxda Villa Soomaaliya haatan ay dagaalka maamulka Jubbaland ay u soo bandhigeen waxaana arrintan daaha ka qaaday 6 askari ee lagu xidhay garoonka magaalada Doolow. Si kastaba dhanka maamulka Jubbaland ilaa iyo xilligan wax warar kama aysan soo saarin arrinta la xidhiidha xanimaada duulimaadyada maamulkaasi Jubbaland balse waxaa gebi ahaanba la filayaa saacadaha ugu soo aadan in maamulka Jubbaland arrintaasi ay ka hadlaan. waxyaabaha ka soo kordho qaybaha dambe warkan ee ku soo gudbin doona tan internetka xig kulmi doonana waxaad ka tahay sidaas iyo amaanada.